deegaanka dalsan eegas qabri bayax oo koonfur bari ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa maanta lagu calaamad saaray caaqil Aadan Axmed Jaamac oo noqon doona caaqilka beesha Cabdi Xamuud oo kamid ah beelaha deegaanka gobolka Sool. Caaqilkan ayaa ku soo biiray cuqaasha gobolka Sool. Munaasabada calaamad saarka caaqilka ayaa waxaa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad culumo awdiin ganacsato qurbo joog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay oday Axmed Faarax Maxamed oo ka hadlay munaasabada calaamad saarka. caaqilka Axmed Aadan Axmed Jaamac aan soo gudbinay hadii aan nahay beesha Cabdi Xamuud oo ah qoys ka tirsan Xamuudugaas anagoo soo xulay oo uu yahay caaqil turxaan la oo aanu aad soo baadhay oo ka baaraan degnay oo aanu u soo magacawnay inuu yahay caaqil Cabdi Xamuud mid dhulbahante mid deegaanka Laascaanood iyo mid Soomaaliyaba inuu noqdo waanu ku aaminay waa u soo xulay idina waa inay ku soo gudbinanaa insha Allah saanu qaadanay inaad u qaadataan maan ka rijaabna waxaana munaasabada calaamad saarka u kala dambeeyay marti sharaf ka soo qayb gashay sida la sheegay beel baa soo dooratay annaguna beelihii kala aanu nahay horta waxaan idin sheegayaa dhulbahante meeshu ku badan yahay arinta inaanu ka nadiif ka nahay oo dadku waxba isku qabqabsadaan waxba isku haysan saqaaqar badala soo hadlayo la war meeshu nadiif mata goluhu nadiif way Cabdi Xamuud hadii aanu nahay xubnaha kale ama jilibada kale ee Xamuudugaas waanu soo dhaweynaa caaqilku beesha Cabdi Xamuud kaliya caaqil ma aha nin dhaqana hadii la magacaabo oo loo magacaabo beelaha kamid ah hadii loo magacaabo ummadda Soomaaliyeed oo dhan caaqil buu yahay hambalyaanu leenahay soo dhaw baanu leenahay qorta xil weyn baa lagu saaray Allah ku fududeeyo caaqilnimadu ciyaar maaha awal oday geeliisa iyo argiisa iska raacdaadahay meel walba waxa la rabaa inaad aadid waxa la rabaa hadda inaad ka bilowday colaad ciilaf weyn ka taagan shaqaqooyinkii hore jiray in wax badan hadda daba aad bilowdid baa la rabaa oo aad ku furfurtid waxa kale oo laga rabaa inaad cadaalad samaysid oo reerkii ku soo doortay aad cadaalad samaysid oo aan koox yar kugu ku xukumin caaqilka waa la shaqeynaa anagu idinna la shaqeeyay taan aan isku ogaano waynu nimi iyaguna gogoshay inoo dhigeen caaqilkay soo doorteen ee inoo keeneena waynu ku baarignay waynuna la qaadanay ilaahayna kii ummadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacaha noqdo caaqilka la doortay Aadan Axmed Jaamac waxaan leenahay beesha marka ay dooratay annana waa soo dhaweynaa si fiican baan u soo dhaweynaa beesha Cabdi Xamuud baa dooratay ummadoo dhan aad ballan qaadaysaan ummadda inta la ka dhex ballan qaadaysaan inaad la shaqeynaysaan oo sida hadeer aad u keenteen u maamusteen ilaa iyo inta uu xilka hayo aad ku maamuusaysaan warinta horta ma naga ballan qaadaysaan inkastaan jeclaa ninka u weyn reerka inaan weydiiyo oo hadalka furitaankiisu iga horeeyay waa in la qaadanaynaa oo waa in iga guddoonnay oo waa in la dooranaynaa laakiin waxa la inaga rabaa sida aad u keenteen inaad ula shaqeysaan aad iyo aad baanu waxa weeye ugu hambalyeeynaa waa soo dhaweynaynaa aadan wuxuu ku soo biiray waxa weeye dhaqanka Aadan Axmed Jaamac oo xafladan loo dhigay waxaanu ugu ducaynaynaa in Ilaahay uu fududeeyo xilka culus loo doortay caaqilka Ilaahay waa doortay intana Ilaahay baa isugu keenay meesha ma yimaadeenay caaqilka waa la doortay Ilaahay baa u doortay Ilaahay baa u gartay ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray caaqilka cusub ee beesha Cabdi Maxamuud caaqil Aadan Axmed Jaamac waxaana hadaladiisa kamid ah sida tan calaamad saartay Xamuudugaas xafladan ugu maamustay aniga Congress bay soo doortay odayaala oo talada reerka gacanta ku soo hayay taladu iyada gacantooda ku jirtaa iyaga ayaa leh guddoonka reerka
iyagaa gacanta ku haya iyadoo ay koow u tahay nabadgelyada annagu dadku hadeer wuxuu haystaa inaanu reer koobannahay ma koobninoo annaga hadeerto sii abtirinayna cuqaashii oo aad qaarna la ansixiyey kuwana aad hadeer kafto hadday dee wuxuunbay igu tuhmeen aan maskaxda tuujiyo wixii igu soo aan yacni helo fakarkayga marjaca loo noqonayaa waa iyaga marjaca loo noqonayo iyaga weyn marjaca loo noqonayo talada leh waa iyaga odayaasha dhalinyaradii soo abaabushay dhalinyara ka shaqaysay hawshatan xafladan dhalinyara soo qabanqaabisay dhalinyaro culimo leh oo da'yara oo mutacallimiin leh cid kasta oo ay kaashadeen iyo iyagabana waa mar labaad baan u hambalyeynaya wakiilka ahay oo aan afkoodi ku hadlayaa beesha xaamud ugaas mar haddii ugaasku ii soo wakiishay booskiisii waxaan wakiilka ahay caaqilka cusub oo aan ku soo dhaweynayaa madasha sharafta leh isagana waan ku soo dhaweynaya haddii aan laydmo farxaan maxamed caydiid wararka RTN laascaanood